dadkii macadadii diiniga ahayd iyo malcaamadii waxbarasho u wada dareeray buug iyo qalin wada qaatay horumarka kale ee ka socda magaalada dhanka caafimaadka oo kale marka aad eegto waxa weeye dhaqaatiirtii way farabadatay intaas oo awal markii hore dhakhtarka weyne magaalada iyo manhal baa jiray maantana falilaahi alxamdu dhowr iyo 10 dhakhtar oo waaweyn oo gargaar iyo fayo iyo ay ka mid yihiin dhalinyaradii oo qabyaaladii iyo gurubaysigii ilaaway dhanka isboortiga oo kale koobabkii iyo cayaarihii oo socda ammaantaa waxaa leh oo aan anugu siinayaa maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka isboortiga iyo horumar aad u ballaaran baa soo kordhay dhismayaasha iyo wadooyinka iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhanka ciyaaraha intaba dhalinyaro aad u firfircoon waliba muhiimadda koowaad waxaa iskala guddoomiyaha gobolka waxaan guddoomiyaha gobolku suurtagelin ma suurtoobaa horumarku cid walba dambi u yahay marka waxa weeye wax kasta oo horumara waxaa lambarkow ka ah waa guddoomiyaha gobolka anagu ugu mahadcelin gobolku intuu gobolka joogay waxyaabahan ku sifaynaya waxaa ka mid ah amnigii oo aad u xasilay lambarkow amnigii oo aad u xasilay dhalinyaradii oo isagii oo dhalinyaradii uu ku xidhan yahay uu wacyigeliyo uu waraysanayo xogtana waxaa laga qaadan karaa waa dhalinyarada gobolka xilliyo badan baa jirtay oo gobolka dadka la xidhi jiray oo kale waxaa jirtay xilliyo oo gobolkooska waxa way siyaabo kale ku jiray maanta gobolka la sacanado waxaa la taaban karaa gobolada gobolka ugu horeeyo noqon karaa ammaanka hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto meheradaha ku soo kordhay sida hoteelada qaaliyo hore aan lahaan jirin gobolku maanta maalin uu ku horumarsan yahay meel allaale meel uu doona ha noqday gobolka la sacanado ma jiro waxa weeye gobolku maanta qof walbaaba wax macnaha arada oo run xaqiiqaba uu arkaya hadday tahay bulshadii hadday tahay si magaalada u shaqaynayso hadday tahay si loo kala dambaynayo hadday magaalada aragto sida ixtiraam loo kala leeyahay hadday aad aragto waxyaalo badan oo ay gobolku lahaan jirin oo horumara ayaa gobolka hadda laga dareemaya waxaa ka mid ah haddaad aragto meel walba suuq cusub baa ku soo kordhay ganacsi baa ku soo kordhay waxa ugu muhiimsan hadda oo la taaban karo loon karo shayga weeye waa ganacsiga waa guddoomiye waxa weeye bulshada ay isfahmayaan gobolka Laascaanood u dhashay waxaad moodaa magaalada Laascaanood hadeertay in aad iyo aad uga horumaraysa xagga isdhexgalka bulshada iyadoo ay aad iyo aad hadeer uga socdaan garoonka weyn ee magaalada Laascaanood stadium Cabdi Bila Cabdi halkaas oo ay inooga muuqdaan isdhexgalka bulshada u dhexgaleen oo ay waxyaalaha hadeertay ay magaaladu ka fayoodahay ee ilaahay ka masaxay waxa kamid ah qabyaaladii gobolka Sool middo hore si kale waxa maanta wax kasta waa salaxan yihiin nabadgelyadu waa taam ilaahay wuu naga qaaday shuushkii qolaadii foolxumadii abaarihii ilaahay wuu naga dul qaaday aad iyo aad buu gobolku u salaxan yahay waa ilaahay shuushkii wuu naga dul qaaday
ganacsigii waa koray gobolka ganacsigiisii wuu koray aad iyo aad buu u koray taana waxaa keentay nabadgelyada gobolku aad buu u shaqeeyaa hadday tahay xaggii amniga hadday tahay xaggii maamulka sare ee barasaabnimada hadday tahay wasaaradihii si khayrul caadiya baannu maanta u shaqaynaa annagu kusoo kordhay ilaahay baa mahad iskale waxaa uu sababay gudoomiyaha gobolka iyo laamaha amniga waxaa kaloo xiga waxaa la sameeyey sandaqadihii magaalada ku dhex yaalay ayaa laga fujiyey ee bilicda magaalada ka halleynayay toobaleyna magaalada loo wadaa ilaahay baa mahad iskale kusoo kordhay magaalada way fiicanta waana wax loo baahayey horumarku sistamka magaalada oo wax laga bedelay talawadaag media kala soco wararkii u dambeeyey dibad iyo caalamka ku xidhnow talawadaag media goor kasta iyo goor walba ha moogaan talawadaag media